الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وحملت إنه يهري محمد مولد شوريا مالكي أي دعوي تاريخي كوميتي ugu yeeray magaca duqeynan Jibriil Kadiyo magaca ugu yeeray maalinkii hawshii ay soo dhameeyeen bil iyo bar ay ka soo wareegtay bisha ay barta dhaxdeeda maxamed mawlid uu aamusnaa shubbu iska ahaaday maanta noo yeeray maanta hadduu noo yeeray Soomaali waxay dhahdeen wixii jiro cakaaruhu imaani maanta noo yeeray wixii jirona uu noo sheegay soo saas ma aha soo wixii jirona muu sheegi meeqa qof qolbo diyaar u ah intuu noo sheegay inaan ku raacno iyo inaan ku raacay gacmaha kor u taaga meeqa diyaar u ah inaan ku raacno very good waxaa la dhahay luqluq madow laamayda ku dambaysa soo saas ma aha maanta meeshan aan fadhinaa hawshii maxamed mawlid ayaan officially shaaca oga qaadaynaa inuu u taagan yahay governor 2027 hadda ka hore waxaa maqli jiray safartii hore aan meesha iskugu imaanay waxaan dhiibnay maxamed mawlid wuxuu noo dhiibtay applicationkii waa la qaaday waxaa la geeyey guddi oo cawda uu soo magacaabay oo meel lagu geeyey halkaan aan fadhiisanay waan wareejinaa waxaan kala dardaaranay sheekooyinkan hadda aan idiin sheegi doono waxaan dhahnay waa kana applicationkii maxamed mawlid wax walba sameeya soo dadaala laakiin idinkoo libax arkaysin dabacaan oo keenina hadda waxay sameeyeen waa aragteen soo maaha duqbaa wuxuu dhihi jiray war hungur weynaa ma guddiba guddigii duqaaba sheego waxay yihiin hunguri weynaa ma guddiba wixii guddi la sheegaya oo dhanbo reer Mandera ka ilbaxeen inaan gadaal ugu noqono ma rabno guddiyahan la sheegayo hataa haddii process cawda uu soo noqdo guddigaas wax ka mid ah oo aan hor istaagi doono ma laha ayuu maxamed mawlid noogu sheegay yaa diyaar u ah guddiga inuu hadana garab istaago yaa diyaar u ah guddiga inuu garab istaago guddigaas waxaa magaca laga haleeyay waxaa ka mid ahaa duqowdeeni oon ku sheeganaynay inay duqow noo yihiin waxaa kaloo ku jiray culimmadii magaalada Gaaras laga aqaanay waxaa kaloo ku jiray siyaasigii la yaqaanay oo cawda siyaasi u ahaa waxay gaartay maanta culimmadii siyaasigii iyo duqowdii inay magaca laga haleeyo waxaa magaca ka haleeyay duqowda dambe ma qabaan culimmadu way fiican yihiin laakiin siyaasi ayaa magaca ka haleeyay odayaashaas diyaar la daariyana raali kama hin waadax baneen iyo bareera ku soconaa waxaan rabnaa oo kale inaan idiin sheego waxaa soo socdaa taariikh 29 intaan weli taa idiin sheegin hadday weli dulunka wadaan dulunka guddiga u wada waxay fadhiyaan hadda almond waxay u fadhiyaan maanta maxaa loo fariisanayaa 2 biloodaa soo dhammaatay maanta maxaa loo fariisanayaa waxaa loo fariisanayaa odayaashii guddiga ku jireen ama maxamed mawlid fadhigiisa imaadaan maabana u yeerinba dad anagana dulme inaan u yeerano maana samayninba maxay u qarqarinayaan raalli kama nihin maana u yeeranin mitinkiina samaysta maanta beri samaysta dhameeya laakiin waxaana raalli ka ahanayn in cawdaaq la dulmo in bilcanteena iyo gabdhaheena la wareeriyo raalli kamana ahaanayno waxaasna waxaa samaynaya waxaa way dad yar cawdaaq uu weyn yahay xalaasha ka badan wixii xaaraan wax yar oo laga kaaftoon karo waay waxaan kaloo inaan idiin sheego waxaa soo socota maxaa lahayay taariikh 29 bishan hadda soo socda ku jirno maanta shalay bilaabatay waxaa la samayn doonaa voter registration haddaan rabna inaan wax qaadano haddaan rabna inaan tartanno haddaan rabna inuu cawdaaq wax noqdo waa inaan kuura goorsano oo aan kuurahayna baaxadiisa weyn dhalinyaro fara badanaa imaaday joogan kibaandhaa la gaaray kibaandho badanaa soo baxay maanta kibaandhaha vettinga laga qaaday dowladdii wax badan ay noo samaysay waxa aan raalli ka nahay inay taariikh 29 inaan registrationki electionka aan bilaabano soo raalli kama nihin soo diyaar ma nihin meeqa qofa kurahooda goosan doonaan
wixii township ka goosana ha goosto wixii balanbala ha goosto kuuraha ha la badiyo midda kale waxaa weeye anaga dowladdan garab baan u nahay 2027 madaxweynaheena waa William Samoei Ruto garab baan u nahay waan dhisaynaa inaan raalli ka noqonna rabnaa laakiin waxaa weeye hal shay aniga waxaan ahay chairmankii ODM Garissa Township dowladdan broad based government ayaan raalli ka nahay inaan dhisno laakiin yaana lagu qasbin inaan meel kale aan wax u raadsano waxaan rabnaa I want to really inform the Secretary General of UDA atoke kwa siasa ya Garissa County. Sisi tunapenda siasa yetu kivyetu, lakini we don't want any political interference from any other political party. Waxaan rabnaa inaan idin sheego partiyahan faraha badan oo soo socdo yaana lagu qasbay inaan partiyadaadina anaga dowladda waan ogolnahay waan raacsanahay garab baan u nahay Ruto waan dhisaynaa laakiin yaana laga bixinin partiga yaa dowladdana laga saarin. And that is why we are calling upon the UDA Secretary General Hassan Omar asiingilie siasa ya Garissa County. Asiwahi kuja hapa kupendekeza a political party. Bado hiyo maneno hatujafika. Sisi tuko katika primaries ya families, tutaongea kivyetu na tutafika kiwango yenye tunataka. Kwa hivyo for now wasiingilie political parties mambo yake hapa Garissa County. Thank you so much.